maxaa ku kalifay in ay nafteeda halligto? maxaa ku kalifay in ay iska soo tuurto dabaq 3 biyaana ah? maxaa waaye dhibaatada ugu weyn ee gabadhan yar ee dhalinyarada ah soo food saartay? dhibaato aysan ka warqabin ehelkii dhalay ayaa soo food saartay gabadhan yar ee dhalinyarada ah, taasoo ku kaliftay nafteeda in ay halligto iskana soo tuurto dabaq 3 biyaana ah. subxaanallahi malikul quduus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالقة عن كلنا جرى الكشي مشرف واحد لي هاي السود دوادا ولا لها قالقة واحد لي ويلكم قاعد مفرن قلب فري وجفرن بكسود دوادا. موضوع ما تربينا كهذا أيان وجود كريا ولا لها قالقة ده أريد جبتنا كم سنين الجوز تقرأ بنا دايق عشتينا ويلكم يا دلي هاي موضوع ربينا كهذا وحقيت هاي جبر صوماليات أو دلني رأى ونفتي هذا حلقتي ربتي نفتي هذا إن أي جويسو كهر intii subxaanahu wa tacaala uusan u qadarin ruuxdeedan in ay dunida ka saafirto. ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga uusan ugu talagelin ayay rabtay in ay nafteeda qaado, balse wax walbaba qadarta ilaahay ayaa ka weyn. gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa waxay go'aansatay gabi ahaanba dunida tan aan saarannahay in ay isaga saafirto, una saafirto halkii loo badnaa ee ahayd aakhiro. sababtu ku dhalisay ilaa iyo hadeertaan lama oga, lamana yaqaano in ay nafteeda halligto ama nafteeda ay damacdo in ay goyso. gabadhan tani waxay ku noolayd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxay kortay dabaq dheer oo 3 biyaana ah, halkaas oo ay iska soo tuurtay nafteedana ay dhibaato u geysatay. balse alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa badbaadiyey oo gabadhii ma aysan dhimanin, balse dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayaa jirkeedii soo gaaray oo ilaa iyo hadda waxay ku jirtaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu dabiibayo xaaladeeda caafimaad. gabadhan ehliyadii ay ka dhalatay xataa kama warqabaan sababta ku kaliftay in ay nafteeda disho ama nafteeda halligto. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiya ayaan leenahay gabadha tan Soomaaliyeed. dhibaatadii ku kaliftay ama problemkii haystay ee ku kalifayna ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda ka masaxayaan leenahay. waxaan sugaynaa ama wada sugnaaba in ay noo soo faahfaahiyaan faamilkeeda dhibaatadii ku kaliftay in ay nafteeda halligto ama nafteeda ay damacdo in ay qaado una saafirto halkii loo badnaa ee aakhiro. magaalada Muqdisho waa magaalo weyn wana caasimadii Soomaaliya, waxaana ku nool dad aad iyo aad u fara badan oo qabaa'ilo fara badan leh. lamana oran karayo dhibaatada waxaa kalifay waxyaabo nolosheeda soo food saartay. lamana oran karayo waxaa kalifay wiil ama dhalinyaro ay jeclaatay. lamana oran karo ilaa xaaladeeda aan ka ogaano amaba ay noo faahfaahiyaan ehliyadeedii iyo faamiligeedii. balse dhacdadani waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo ka dhacday caasimadda Soomaaliya oo gabi ahaanba dadkii xaafadda joogay aad iyo aad uga yaabeen markii arkeen gabadhan yar ee dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee dabaqa 3aad saaran doonaysana nafteeda inay halligto oo iska soo tuurto dabaqa. ayaa dhalinyaradii darska ahayd iyo wixii shaarica marayay inta isku soo yaaceen ayaa waxay damceen gabadhii in ay badbaadiyaan. way la hadleen, waxayna leeyihiin abaayo ha isdilin, abaayo naftaada halligin, abaayo joogso. bal ila dhagaysta dhalinyarada tani waxa ay ku hadaaqayaan amaba ay leeyihiin. gabadha tani waa gabar Soomaaliyeed. run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatooyin aad u fara badan ayaa dalka gudihiisa ku haysta, taasoo ah camal la'aan fara badan ama shaqo la'aan fara badan oo haysato. way jiraan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo iyagu ehliyadoodu ka caawiyaan dhan dhaqaale ama dhan waxbarasho ama dhan maxaa la yiraahdaa shaqo ay ka caawiyaan, way jirtaa. balse waxaa ka badan inta aynu ehelku ka caawinin, hadday noqoto dhanka waxbarashada iyo hadday noqoto dhankan dhaqaalaha. marka gabadhani ma waxay ku jirtaa dadka dhibaato ay soo food saartay wax la'aaneed, mise waxay ku jirtaa dhalinyarada jacaylkan baas ee la sheegayo maskaxdu ka waalay ee qofku iska dhaadhicinayo qofkan haddaad weyday maxaabad ka noolaanaysaa. allahu aclam waxaa ku kalifay gadaal ayaan ka ogaan doonaa. balse waxaa murugo ah dhibaatada soo gaartay gabadhan dhalinyarada ee Soomaaliyeed iyada oo dabaqa 3aad markii ay iska soo tuuraysay haddii ay ku dhici lahayd
dhulka gawaanka ah ama dhagaxyadan cimaaradda ka hooseeya hadday ku dhici lahayd dhibaatadii soo gaartay waxaa laga yaabi lahaa haddii ay noolaato oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nafteeda uu daayo waxaa laga yaabi lahaa gabadhan in ay shalal qaadi lahayd ama ay noqon lahayd qof naafo ah oo hadhimana noolayn ku jirta balse rabbi subxaanahu watacaala yuu u bixiyey wuxuu u bixiyey dhalinyaro soomaaliyeed oo waxay soo qaateen maadaama ay kari waayeen oo ay ku daaleen abaayo ha istuurin abaayo joog abaayo ha isdilin ay ka badbaadin waayeen hadal ay waxba uga qaban kari waayeen ayay waxay go-aansadeen in ay soo qaataan dirintaas ama sijaayad ay soo qaataan kadibna ay qabtaan hareeraha sijaayadda afarteeda dhinac dhalinyaro fara badan ay qabatay kadibna ay hoos dhigeen bartii ay gabadha rabtay inay iska soo tuurto si ay gabadhaas ugu qabtaan balse macal asaf iyagoo ku qabtay gabadhii dirintii oo dirintii ay u dhigeen ay gabadhii kusoo dhacday wax dhibaato ahoo dhulka ay kusoo dhacdana aanu gaarin oo ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyo dhalinyarada u diray ayaa haddana waxaa soo gaaray dhibaatooyin aad u fara badan dhibaatadaas oo ah soo tuuritaankii ay isa soo tuuraysay oo ay iska soo tuuraysay dabaqa saddexaad ayay waxay ku dhacday intaysan dhulka soo gaarin derbiga cimaaraddii ama dabaqii iska soo tuuraysay derbigiisa ayay ku dhacday dhagixii ayay laba jeer saa ugu laba dhacday derbiga ahaa dhagixii derbiga ku samaysnaa ayay ku laba dhacday kadibna sanka iyo afka iyo wejiga ayaa dhibaato aad fara badan kasoo gaartay halkaas oo isla markiiba gabadhii isbitaalka loola cararay isbitaalkii markii loola cararay isbitaalkii ugu horreeya la geeyey ay yidhaahdeen gabadhan waxba kama qaban karno ee isbitaal hebel geeya isbitaal kaleeto oo isbitaalada waaweyn ee ku yaala muqdisho ah ayaa la geeyey gabadhii halkaas oo dhakhaatiirtii markii loo geeyey ay ku dabiibeen kulana tacaaleen dhakhaatiirtii markaa isbitaalka joogtay khayr allaha siiye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horta dhibaatadii ay isdhehaysay iyo naftaada go isdhehaysay uma suurtagelin balse gabadha tani ma tahay mid ka waantoobi doonta maadaama ay dhibaato soo gaartay aad u fara badan dhibaatadaas oo iyadu gacanteeda isugu geysatay ma laga yaabaa falkii ay samaysay maantii toole in ay dib ugu laabato haddii ay soo miirsato mase laga yaabaa rabbi subxaanahu watacaala in ay ugu xamdi noqdo oo ay iska dayso dhibaatadii iyo dilkii foosha xumaa ay rabtay nafteeda in ay kula kacdo ilaahay subxaana watacaala ayaa arrintaa ka warqaba markii ay soo caafimaado ama la waraysto ayaana laga warqabi doonaa ilaahay waxaan uga baryaynaa gabadha yar ee dhalinyarada ah inuu qalbiga u qaboojiyo kana saaro falka foosha xun ee maskaxdeeda kula wareegayay ee maskaxdeeda ku jiray ahna in ay nafteeda goyso ilaahay subxaana watacaala ayaa naftaan abuuray isaga ayaana og waqtiga ay baxayso isaga ayaa abuuri kara isaga ayaana qaadi kara waana dembiyada dembiga ugu waaweyn naftaada inaad halagtid ama naftaada aad qaribtid ama aad dishid ayadoo ay jiraan dadyaal fara badan oo maxaa la yidhaahdayay doonaya in ay caafimaadaan lacagtoo iyo hantidii ay lahaayeen oo dhan ugu shubaya bangiyada si ay caafimaad u heli lahaayeen oo ay dunidan ayaama usii joogi lahaayeen ayaa haddana waxaa jira dadyaw fara badan oo wax ka maqani aysan jirin haddana raba naftii inay iska qaadaan oo naftoodii halligaan yacni adduunku waa istabamar waana cakis weeye ilaahay baan ka magangelaynaa innagii intii islaamaba nafteenna inaan halligno ama uu nagu keeno waxaa nafteenna ku halligno miirkeennana ilaahay subxana watacaala nagama qaado oo taam ha nooga dhigo ayaan oran karayaa waxaa jira dadyool fara badan oo soomaaliyeed oo iyaguna tabar yar oo aan haysanin hanti maanta toole isku dabiiban xanuunsanna soomaalidan dadka caawisa ka codsanaya si loogu qaadi lahaa caafimaad dhanka dibadeed ama dibadda ah caafimaad dalka ka baxsan loogu qaado looguna daweeyo ayaa haddana waxaa aad arkaysaa dhalinyaro caafimaad qabto oo miirkoodu taam yahay wax ka maqana aysan jirin haddana doonaya naftooda inay halligaan taasi waxa weeyaan ayaan darro wey waana ayaan darro kusoo kordhay dhalinyarada soomaaliyeed iyada oo dhalinyaro fara badan la sheegayay inay sun cabeen taas oo ay u cabeen suntaa jacayl aawadiis oo naftoodii halligeen qaybtoodna ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyey ilaahay baan ka magangelaynaa waxaasoo kale gabadhan yarta ee dhalinyarada ah hadda waxay ku jirtaa isbitaal oo weli lagu dabiibayaa welina faahfaahin nagamay siinin ehliyadooda iyo faahfaahintii ayaan sugi doonaa insha allah akhbaar in ayna siiyaan iyo dhibaatada ku kaliftay iyo waxaa u geystay ama ku kalifay gabadha tan nafteeda in ay haligto
ilaahay caqliga ha u soo celiya ayaan leeyahay, ilaahayna ha soo hadeeya ayaan leeyahay. waa u wada duceynaynaa haddii aan nahay soomaali weyn. soomaali waa dad isjecel weeye soomaalidu. waa u duceynaynaa gabadhaas in ilaahay subxaana watacaala ducada u aqbalo, rabbi subxaana watacaalana qalbiga uu u qaboojiyo, kana madoobeeyo falkan foosha xun ee ay ku dhaqaaqday amaba ay ku kacday. ilaahay subxaana watacaala ha ka madoobeeya ayaan leeyahay, qalbigana allah u qaboojiyo ayaan oran karaa. aamiin yaa rabbi alcaalamiin. iyadoo haddartaan isbitaal ku jirto ayaa haddana isbitaalka waxaa kula jira waalidiinteedii oo aad iyo aad uga walwalsan, ugana murugaysan, ayagoon ka warqabin gabadhooda waxaa ku kaliftay dhibaatada tan in ay ku kacdo ama ay ku dhaqaaqdo. waxaan idin leeyahay waa walaashin Shayma Sharaf. janalku waa janalkiinii, janalkan laga socotaan janalka Shayma Sharaf weeyaan. waxaan idinkaga tegayaa walaalahayga qaaliga ah salaanta islaamka oo ah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.